السلام عليكم وعلى خضاب ولا الآدي أد بدو ما صنتهاي دوشة ذا قروح بدن هدي أتهاي أرضي سكول دكتا أما جامعة دكتا إن بدنه إن جمدا وحينور هذينا إن أي وحبرشة عن أهلنا رابطان يكهريتان يعني إن هنوح آخرسكي ماشان عشرة دنا ديارسان هن إن سكنو inaan rabitaan helno in yani wax dareemo gudaha yani oo dhahayo wax akhriso wax diyaarso si dhabayad u ogtahay hadii aad wax barashada ku dadaashid casharada aad ku dadaashid inaad heer gaaraysid goolna ay ku soo hoyanayso sidaas ay tahay ma sameynayso ogow in ay naftaadu been ku sheegayso aqligaagan uu ku qiyaamayo hadii aad tahay qofkaasna wallahi weliga wax barashada rabitaan uma helaysid marka dhibkan haysta ayaa waxa uu yahay buugaagta waan sii qaadnaa shalay meesha dhigna hadhowna ka sii qaadnaa ma taqaana walaal farqiga u dhaxeeya qofka guuleystay iyo qofka guuldareystay qofka guuleystay waa midka si dhab oo in wadada kaliya ee guusha in ay tahay waxbarasho aqoon cilmi iyo dadaal iskuul baad gashay waxaa ma akhrinaysid jaamacad baad gashay buugaagta yani waad sii qaasa oo soo qaasa wallahi waxa kuma faa'iidaysid lacagta baad family ka dhamaynaysaa walaal wadada guusha ma ahan mid ay ubaxyo ku fidsan yihiin si ay dadka sheegaan maya waa wado u baahan adkaysi dhabar adeeg iyo dadaal iyo rafaad waxaan loo rafaadin reerentooda lama helo waxaan loo dhibtoon dheeftooda lama helo marka waxa laga rabaa inaad wax hurtid inaad wax bixisid si ay wax ku soo galaan naftaada hala barbar dhigin dadka liita dadka hooseeya yani waxaad arkaysaa adiga qofkii kula ekaa oo filmaan iska daawanaya TikTok iyo Snapchat iska dhex walaaqaya ciyaar iska fiirsanaya waqtigiisa aan ka faa'iideysanayn aan waxba diyaarinayn ayaad arkaysaa adigiina buug baad dul fadhida maanta waxaad akhrinaysaa waa dadaalaysaa ogow walaal qofka sidiisoo kale hadii aad noqotid waxaad helaysaa raaxo waqtiyeesan hal waqti yani wax yar waqtiyeesan hadhowna waad ka shalaayi doontaa hadhow imtixaanka markii la gaaro hadii aad isku dhiganaysaa jaamacad dhiganaysaa waad ka shalaayi doontaa hadhow iska badaaya xataa hadhow markaad gabowdid oo dee aad noqotid baad dhehaysaa yaa laytani markaan yaryareen iskuulka waxaan ku dhigi jiray maxay alaa layta shabaab yacuud yowman shalaytadeedii iyo dhallinyarnimadeedii hal mar iyo celiya marka ha sugin in uu rabitaan ee waxbarashada ku gasho aad yani saas wax ku diyaarsid bal rabitaanka aad gacantaada ku sameeyso nasiib ha sugin in hodhow waxa kasta aan nasiib aad ku heshid nasiibka aad gacantaada ku sameeyso ha sugin inay mucjiso ku timaado oo aad wax diyaarisada aqoontaada balay noqoto adiga mucjisada gacantaada ku sameeyso naftaada la barbardhig dadka sare dadka hanka sare leh dadka guuleystay dadka meesha sare gaaray isweydii maxay sameeyeen si ay meesha ku soo gaaraan meeqay dadaal bixiyeen meeqay waqti bixiyeen meeqay rafaad bixiyeen ma haday fariisteen bay waxay sugeen in waxaan rabitaan u helaan in waxaan ay ka qabato in waxaan ka helitaan ay u helaan haday fariisteen way sugeen ma haday fariisteen bay waxay sugeen nasiibka iyo in waxaan nasiib iska helaan maya hadii aad la timaadid dadaalka ay bixiyeen oo kale waad gaaraysaa meesha ay gaareen hadii aad la timaadid dadaalka ay bixiyeen mid ka badanna iyaga ayaad ka sareynaysaa walaal meesha ka kac Soomaaliya adigay ku sugaysaa wallahi adigay ku sugaysaa xaaladan ku jirno ujeeda aqoon iyo cilmi iyo waxbarashaan uga bixi karnaa wadadaas ugama baxayno inaan TikTok iyo waxaas iyo Snapchat iyo Instagram iyo YouTube iyo Facebook iska dhex fadhino ugama baxayno bal aqoon iyo dadaal ina isgarab siino qof kasta qofka kale walaalkiisa uu caawiyo saasaan uga bixi karnaa duruufaan ay maanta wadankeena ku jiro cilmi ayaa heer lagu gaaro walaalayaal marka aqoonta cilmiga aan ku dadaalno biidinayda yaana noqonna inaan buugaagta iska sii qaadno soo qaadno birime wallahi waxbarashada Soomaali badana 90% ardaydu waa sidaas buugaagta way soo qaadayaan way sii qaadayaan jooji caajiska iyo dibdhigashada markaad caajis iyo dibdhigasho aad la imaanaysid waxaad ka cararaysaa waxbarashadii iyo aqoontii dibdhigashadu waa tan ugu xun ee noloshaada burburinaysa waxa hadda qaban kartaa just now samee hadda hadib dhigin bari sa u dhaysid noloshaada adigoo ku hayo bari ay dhamaanaysaa marka insha Allah walaalayaal aan dadaalno
aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay inaad intaas oo dhan ay soo daawanaysa waqtigaaga qaaligaana aad ii hortay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay runtii insha allahna in ay waanooyinkan adiga iyo aniga inaan faxanayaan rajeynayaa khayr baan ku rajeynayaa sidaan halkan ugu kulanay rabbi subxaanahu watacaala jannadiisa noogu kulmiyo. Today is your day. Maanta waa maalintaada ka kac meesha ha isdhigan.